السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada daawadayaal dhammaan idin ahaantiba kuna soo dhowaada kanaalkeena 123 Soomaali. Fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar gambalaalkana furo si uu ku soo gaaro muuqaal waliba markanu sidaa u soo gelinaa. الكل بادي دي ولا يبلو ولا كل بادي والله صاحي سمدان كم قناة كنالك بيل يتشرشر مقال عصبنا أنا سوقلين رنتي ما شاء الله لكن بالصلاة سوق رحبتي ما راح أدقر هالستين بدي أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان ما شاء الله تبارك الله حد رمسه قوت نرير بنتي runtii mudada bil iyo tartarka ayaan kala maqnayn oo ah muddo aad u dheer aragtidayda runtii waxa la igu guuleeyeen aan dhammaystiray gabagabeeyena heerka koobaad ee jaamacadda ama degree programka anigoo ku mashquulsanaa qorida guudii jaamacadda ama thesis-kii lagu qalin jabinayay ma sha Allah dhaho qaar badan oo idinka mid ah ducada mustajaabada awal bahasha soomaysa biyo waaye الحمد لله sidoo waxaan u baxay safarkaas oo waqti qaatay runtii inaan ka soo sameeyay muuqaal aad u qurux badan aanan jeclahay inaan insha Allah bidmillahi karim maalmaha soo socda idin la wadaago biyahan aad arkaysaan waa biyo durduro weeyaan waa biyo macaan dooxan bay soo maraan waxay ka soo baxeen buuraha inaga sareeya waana la cabi karaa runtii إن شاء الله بإذن الله الكريم مقال كنا ما أنتنا من نقول دونا مد أنا ده حبك كده في ناس ساعة وحن كوجسو تبين دونا بوجا كان وأركان ما كان بسم الله الرحمن الرحيم أروى بوجا جولة ذاك مستر جو كم كاليكويشن سيبل هيك كنا ما فقرنا دواء كواقر حي ونات مولك مستر دكت ونات runtii buugan aan idin sheegay magaciisa la dhahdo top 5 regulations of dying oo macnihiisu noqonayo shanta shay ugu waaweyn ee ay ka nasnaaseen ama ay ka murugoodaan dadku marka ay sii dhimanayaan buuga kana waxa qortay gabadh Australian oo kalkaaliso caafimaad ahayd magaceedana loo yaqaan Bruni Ware gabadhani waxa ay muddo ka shaqeynaysay dhakhaatiirta qaybtooda la dhigo dadka da'da ay hadda jeer ay ku dhacaan xanuunada aadka u daran dadkaasi da'da ah oo aan rajaynay in ay ka soo kabtaan xanuunka kaasi ah had iyo jeerna ay u qurbaxayaan muddo yar kadib gabadhaasi shaqadeedu waxa ahayd inay dadka maaweliso waqtiga iyo waayaha iyo xanuunka daran ay hayana aanay ku cidleen taasaanay dawladdu lacag ku siin jirtay kuna shaqaysan jirtay gabadhan iyada fursada ka faa'iideysanaysa waxa ay weydiin jirtay muddada aadka u dheer ee ay shaqada taasi haysay qof waliba oo sii qurbaxaya adduunyada tanana ka sii socdo hal su'aal ah inta aad noolayd maxaad ka murugaysan tahay in aanad falin ama maxay ahayd inaad iska diiso nin waliba halkii bugtay isagay bilbashay dadku waxay uga jawaabayeen su'aasha taasi ah siyaabo kala duwan saacada waxay u badnaayeen 5 jawaabood inay gabadha taasi asiyaan iyana 5 jawaabood waxay ka qortay buuga kan ah waxaan u soo tabinayaa muuqaalka kan ah ama aan idinku sheegayaa buuga kan ah waxaan ku dhex qoran hadhow toole yani dadkaasi waxa ay ka murugoodeen oo ah ashiyaa hadii jeer waaqicina ka jirta in aad iska ilaalisan si hadhow toole aanaydan uga naasnaasin haddaynu ku bilowno shayga koobaad ee gabadhaasi ku sheegtay in ay dadkaasi ka naasnaasiyeen buugeedu waxa uu ahaa in ay isku raaceen badankooda in ay jeclaan lahaayeen inay u noolaadaan noloshoodii sida ay iyagu doonayaan ayaanay u noolaadeen sida ay dadka kale doonayaan run ahaantii waa dhibaato jirta waxaana fara ku tirisa dadka u nool sida iyagu doonayaan waxa laga yaabaa shay amaba waxaad xiisaysa inaad iskaga dayso in aad isleedahay dadka kula yaabay waxa la oran doonaa muxuu sidaa u sameynaya midaan kuu sheega ee wixii Alle subhanahu wa ta'ala uu ka raali yahay samee ee naftaadu jeceshahay hase ahaatee waxa doonayso ha u joojin hebel kale aragtidiisa ama talow muxuu ka oran doonaa arabtuna waxay ku mahmaadaa rida naasi gaayatun la tudraka haligelinta cid waliba waxa aan suurtagal ahay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ummadda oo dhan raaligelin hayay oo ogeydeen isaga oo dacwad iyo Alle subhanahu wa ta'ala isagoo diintiisa dadka ugu yeeraya in Taa'if iyo goobihii kale limidkaasi dhagax loogu waday in dhiigi madaxiisa ka soo dhacay u gomadihiisa dareeray sida daraadeed waa qodobka koobaad u noolo walaala sida aad rabto oo dadka dan iyo muraadtoonaha ka gelin waxa muhiim ah in sida aad u nooshahay ay waafaqsan tahay shariicada islaamka Alle subhanahu wa ta'ala uu raali ka yahay waa qodobka labaad ee aadka muhiimka ah dadkaas isku raaceen in ay ka murugoonayaan intay noolaan in aanay falin buuga kan ahna gabadhan ku xustay waxa weeyaan waxaan jeclaan lahaa in aan la yahay geesinimadan ku cabirayo shucuurtayda iyo waxa aan dareemayo marar badan baa laga yaabaa in chance iyo fursad ku soo martay oo noloshaad hadda ku nooshahay wax badan ka bedeli lahayd in ay kugu dhaaftay adiga oo ka xishoonaya ama ka baqanaya ama ka qajilaya dadka falcelintooda haddii aad arrinka isaga ka hadasho ama aad cabirto waxa aad dareemayso tan noqoto fursad la xiriirda shaqo ama ha noqoto mid la xiriirda aad qof kale wada sameynaysaa
alabi waa iskaabulay mise inuu wanaagsan oo isku waday ku hareer martay sababtuna ahayd adiga oo ka gaabsaday inaad urkaaga waxa ku jira u sheegato maantana reer leh ceebi taal marka qodobka labaadina waxa dareemayso soo tabi dadkana u sheeg Allah subhanahu wa ta'ala afkan waxa uu kugu sameeyay waxa urkaaga ku jira in aad ku soo tabiso qodobka saddexaad ee gabadhan ku xustay buugeeda kan ah dadka inta badan ay ka murugoodeen in aanay falin noloshoodii waxay ahayd waxa ay jeclaan lahayn in aanay noloshooda idilkeedii ama badankeedii ku dhamaysan iyaga oo shaqo iyo tacab iyo lacag raadinaya hasa ahaatee ay ahayd inay bal waqti la qaataan familygooda qoyskooda asxaabtooda iyo sidoo kale ubadkooda waalidkooda iyo cidii kaaga dhow qof baa laga yaabaa inuu maalintii shaqo taga 6 aroornimo kadibna uu soo rawaxa 1 duhurnimo kadibna uu haddana ku noqdo 4 galabnimo habeenkiina uu 10 ama 12 gurigiisii ku soo noqdo qofkaasi runtii ma jiro waxa uu ka ogyahay qoyskiisa waxa uu ku sugan yahay ha noqoto xaaskiisa ubadkiisa waalidkii ama asxaabtiisa noloshaduna runtii waxay ku habooneed inay noqoto mid balance gareysan ama isu dheelitiran waqtinaad shaqaysa waqtinaad la qaadato cidaad jeceshahay family iyo friends baa qodobka afraad ee gabadhan ku xustay buugeeda in badan oo dadkii sii dhimanay kamid ahaa ka murugoodeen waxa uu ahaa in ay jeclaan lahaayeen inay ilaaliyaan xiriirkii asxaabtii u dhadhaweyn noloshan adduunyada intaan ku noolahay dad aad u tiro badan baynu baranaynaa oo kumanaan kun oo qof ah saahaatee mid 2 3 4 5 ayaaba laga yaabaa inaad isku dhigirtiin dadka kuwaas ahna waxa haboon in aad xiriiriso oo xogaal u haata hadba waxay ku sugan yihiin Allah subhanahu wa ta'ala marka uu ka sheekinay jannaha waxa uu ku tilmaamay suuratul waaqi'ah muttakiina 'alayha mutaqabiliin jannuhu waxay ku dangiigsan yihiin sariira iyagoo isa soo qaabilaya oo wada sheekaysanaya sida daraadeed waxa haboon inaad asxaabtaada ku dhow xiriiriso waqtina la qaadato waxay ku sugan yihiin aad ogaato qodobka shanaad ee ugu dambeeya gabadhan ku xustay buugeeda dadkii sii dhimanay badankooduna ka naasnaaseen waxa uu ahaa inay jeclaan lahayn inay naftooda ka farxiyaan waxaana ilowsanayeen badankoodu in farxadu tahay wax qof ku sameeysto warda jawiga waa la sameystaa waxaana laga yaabaa inay farxadooda ku xidhan dad cayiman ama ashkhas kuwaasi oo in badan oo noloshooda kamid ah soo hoojiyay farxadoodii iyo moraalkoodina kaga ciyaaray noloshada waxa haboon inaad ku xidho ahdaaf iyo goolal iyo yoolal hasaahata aad ku xidhan ashkhas waxa laga yaabaa in qofku isbedelaba adna aad leeyahay aad iyo aad uga murugoota arinta taasi ah sida daraadeed noloshadu ha noqoto mid yoolal iyo ahdaaf ku xidhan shanta arrimoodna waxa ay shanta arrimood ay gabadhaasi ku xustay buugeeda hasaahate waxa jira arrimo intan ka waaweyn oo qofku ka murugoon doono marka uu sii dhiman doono arrimahaas oo u baahan in ay kalkaalisa buuga qorto ama lagu soo ogaado daraasad cilmi baaris waa tawaalla subhanahu wa ta'ala leeyahay hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt marka midkood geeridu timaado waxa uu odhanaya ilaahayow dib ii celi oo dib ii noole aan soo shaqaysta amal wanaagsan oo aakhira ay anfaca sida daraadeed arrimaha buugan ku qoran waa arrimo la xidhiidha nolosha adduunyada saahatay ku aakhirana hamoogan walaala qaali waxaan rajaynayaa in muuqaalkan wax badan kaaga baxeen oo sahay ku noqon doona hayaanka nololeed aynu ku jiro muuqaalkan intaas ayaa ku ogyahay ha ilaawin inaad kanaalka ku soo birto adigoo subscribe taabanaya gambalaalkan aad furato asxaabtan aad u sii share gareyso muuqaalka kan ahna like saar si uu gaaro dadka ugu badan videoga xigeentan isugu iman doono nabaday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh